markaad maqasho hacking-ka waxaad sawiranaysaa qof fadhiya meelaha laga isticmaala kombiyuutaraadka caalamka kuwaasoo qorayo koodhad muhiim ah weerarkii ugu yaqaanaay caalamka hacking-ka ka dhaca kuwaasoo loo adeegsaday shirkadaha caalamka kuwa ugu qotada dheer shakhsigan siduu u isticmaalay weel kalluun ku jiro cajiib waxaa hubaal ah haddii aad sheekadan dhamaysato inaad la yaabi doonto waadna fahmi doonto dhammaan hakarka wuxuu yahay waxaan ka rabnaa inaad fiidiyoga inoo like garayso haddii aad hore inoola joogtayna waad ku maxsan tahay aanu ku bilaabno sheekadeenna maanta waxaa loo soo maray qaab yar oo biyaha qaab yar oo fudud kaasoo ah in kalluun la diro kadibna uu geeyo meesha loogu talagalay xogta kasiinadan waxaa soo dhaafin jiray in ka badan 100,000 kuwaasoo meesha ku qamaaro in ka badan maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday wiilkan wiil dhalinyaro oo iska weerarsan kaasoo ah midaan shaqahay garan la'san wuxuu sameeya guud ahaan dhalin alaale intii hayna uu ku qamaaray taasoo caddaynayso inuu taagnaay meeshii ugu dambaysay ee sagxadda wuxuu fahamsanaay qaabka isgaarsiinta iyo sistamka ay u shaqeeyaan wuxuu lahaa qalab yar oo smart ah kaasoo ku isticmaali jiray internetka qaalaha kasiinada waxay waraysteen inuu yahay midka u taagan qurxinta teknolojiyadda horumarinta qolka ama hoteelka kasiinada hackeriska oo u muuqda inay heleen xilligan fursad waxay ogaadeen in qalabka yar ee loo yaqaano bartamaha qolalka ayaa ugu dambeyn ay u dhaceen waxayna markaas ay ogaadeen in qolkaas uu lahayn gebi ahaan wax waardiyo ugu dambeyn ninkii hakarka ahaa wuxuu wacay waxaan u soo dhaceen nidaamka weelka kalluunka markay halkaasi fadhiisteen waxay heleen sida wax yaalaan internetka maadaama ay gudaha abil xogtii kasiinada ay gudbeen kombiyuutarkii u adkaa kaasoo ku kaydsanay xogta macluumaadka kuwa ugu taajirsan ama qaybta VIP-da loo yaqaana kuwaasoo badankood deedelaan dhinacaya kasiinada waxay isla markiiba ay bartilmaameedsadeen kasiinada VIP-da taasoo loo yaqaano kuwa khaaska ama taajiriinta ugoonida ah natiijada iyo fadeexaddii ka dhacday sida fudud oo lagu qaatay waxaa dhacday in shirkaddani ay la kulanto dhinacaan badan taas oo gebi ahaanba kaga imaadaysay dunida dhinacyada kala duwan kuwa lacagta ku lahaa waxayna ku samaysay waxa dhacay iyo waxa qaldamay markii la ogaaday inay tuugadani aysan soo marin xafiisyada iyo meelaha kale balse ay soo mareen qolka weyn ee lagu qurxiyo laguna talagalay in lagu ilaaliyo xogaha lahaday waxay isugu jirtay magacyo taleefanno iyo kaarar bangiyo caalami ah haddii aad dhacdadan ka heshay muuqaalka inoo la garay waxaan halkan kaga hadalnaa dhacdooyinka caalamka gaar ahaan hackeriska iyo dhacdooyinka kala duwan si aad ugu socoto dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee caalamka fadlan halkani waa halkaadii